والله الحربة إنه كويدي سؤال مالمهن سيدا ميديا كودا أركيني قبلها مروكانكي قبلها سوماليدا وحواد وترتماينو waxaan naga raacday Marookaanka adi ahaan ra'yigaaga sidee kula tahay gabar Soomaaliya iyo gabar Marookaana midee xulan lahayd nadar anigu waan ka soo horjeeda arrinkaas sababtoo ay tahay waan ka soo horjeeda waxaan uga soo horjeedana wax kale ma aha gabar Soomaaliya wax lagu doorsadaa ma jirto marka maadaama ay ayaamahan arrinkaas socday oo dhalinyartiina ay aad ugu haqal taagayeen anigu hablaha Soomaaliyeed baan garabkooda ahay maansana waan ka tiriyay insha Allah waxa la yiraahdo waanu sameeyay hablaha Soomaaliyeed marka waxaan ilaahay haybaha hawada raacay ku habaabay leeydhow in yaraan ku hal yaraan ku iraade hoos igu soo hogay hablaheenu waa hodan waa haybad iyo qurux habka dunida noo shida hanad kasta oo hawada marayna waxa habeeyay waahibo hidiye dhaqan bay u leeyihiin ragga inay hagaajaan waa hoodo quruxdii haldhaa miidhan weeyaan waa hooyo iyo habo haybtay ila wadaagaan adigoo aan hal soo howin waa kuwa ku haystee ku hawaysanaya ku dhalaaya hanadada adigoo hintaaqaynaya oo hadal xumo u soo taagan ayaga hareertaada jooga oo hoygaad galaysiyo ku habaynaya gurigii marka aad hawootay hay damac ku qaadana ayaga hagarle wax ku siinaya hodantaydii duniday aniga ku haybsho hadiya jeer hawada sare ka haybinayo xalab badanna ka bixinayo oo boqorkiiyo haldhaagiina hareertaada sugaye hawaysan ruux kale aad ma xasanta waan shaafis kuwi bixeen way bixeen kuwi jooga inta wanaagsan baa idinka badan maansadaasna hablaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baan ugu talagalay sharaf iyo karaama waa maasanta wallahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal gabar Soomaaliya iyo gabar Marookaana sidee u aragtaa gabdhaha Marookaanka ma dooran lahayd gabar Marookaana mise Soomaaliya ku hartay Marookaanta dooraa maxaa ku dooratay Marookaanta waa isdhisan jirka waa dhisan maartay dhan walbana ka qurux badan gabdhaha kale maadaama aan bahdirin gabdhaha Soomaaliyeed kuwaas ka fiican adiga macnaha okay dadka safarka aad ay maxaa ugu hartay gadaalka aad ma isleedahay mise waxa waay maxaa ku qorsheysan hadeertaan hadaba socdaa maartay sawiraanti maartay u diri lahay gabadha hadda galiyo macnaha maartay sawiraanta saa u diray kadibna hadaba socdaa boorsadii wataa sidee u aragtaa faaraxyaalka oo safreen oo Marooka aadeen wallahi faaraxyaalka oo Marooka aad safray oo gabdhahan quruxda badan ka tagay waxaan dhihi lahaa aad ay u nisbixan yihiin ta kale yani gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha qurux badan oo sharaf leh marka nimanka baxo Marooka aad faarax lagu baasto waxaan dhihi lahaa soo laabto cilaana loo saaro wax kala dhaay walaan adi ma gursan leed wiil Marookaana maya anoo wiilashan quruxda badan oo jeedo wiil Marookaan ma gursaleen ama santaa waxaan rabnaa ku weydiin su'aal gabdhaha Soomaalida iyo gabdhaha Marookaanka wiilashu waxay wada aadeen Maroko adi ahaan waxa waay safarka mu socodniya ma safarka dhawaan waa laga filaayay way gabdhaha Maroko horto waa guurkooda askar raqiis soo xaliim caloole idoo raqiis Soomaaliyeed waxay raadinay 20 jir oo 20 milyan aabeedo faqiirna guri u fadhiya ay ku taajirey marka taas ma naqanayso soo waxa dhilaa hadii rag Soomaaliyeed inay Soomaaliya joogan rabaan guurka 2000 had Maroko 2000 soo lama dhigin $900 laga dhigay raqiis halka sii dhigo xataa bila firi xataa ka dhigtiin waa joogayna laakiin hadda 20 jir oo 20 milyan istiraadinaysin oo biin faqiir guri sii joogo من قناة شكل ساس وحكي تيجي حتى ودمك اللي سيادة عربت اللي سيادة أفريقيا كان اللي سيادة سين قناة وبعد مي هذا بحسام كنت قاعد قلبي مرق وجه أنت لا جسمي كله متشجوع كم حاجة مرق أجرب صان قرمك وقرش سنة مرق أدي دوان هذا حلقة دون لكن مرق نيدي حاجة جرتها قردو قبل مرق هذا هالفرين ورين وأساس على دوان حاجة اللي يوسي دوي دتك سفرة يمكن جرمي هذه والله dadka safray waxa umaleena inaysan wili afgooy dhaafina umaleena sababtoo safarku dheer yahay qof Soomaali ka tagay Maroko aaday Maroko ma jihadii ka jirta xitaa Soomaalida ma yaqaanaan aaminsanaaba ma aadin marka mana aadi doono ma laga yaabaa ra'yigaaga inaad badshid oo waxa waaye gabdhaha Marookaanka horta u aragtay gabdhaha Soomaaliya maxaa farqiga u dhaxeeya wala farq zaid u dhaxeeyo sababtoo ah gabdhaha Soomaalida ah wax loo dhig ma jiro adduunka oo dhan caalamkaas Soomaaliya gabdhaha ugu quruxda badan waaye gabdhaha ugu akhlaaqda wanaagsan waaye waa gabdhaha ugu tayada fiican Soomaaliya mana laga yaabo xataa Maroko iska dhaafay Sacuudiyaan iyo wadamo badan oo cadaan xitaa Soomaalida ma gaari karaan marka gabdhahan wax loo dhigay ma jira aaminsanay Maroko iska dhaafay malaabi hadaa kintiin xataa Soomaaliya ka fiican aaminsanay ma santahay hada mudan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal sida maalmahan og tahay ama meediyaha ka wada aragnay gabdhaha Soomaalida iyo gabdhaha Marookaanka adi ahaan maxaa la sidee u aragtaa gabdhaha Marookaanka maxaa in la aado wiilasha Soomaaliyeed ee aadaan sidee u aragtaa
wallaahi horta hore wax loo dhahay dharkaan dhaxan kaa maceliyo dee wiilasha hadda dhahaayo xaliimooyinka waa kuwa marookaanka xoogaa fiican markay dhahayaan raqiisna waa markay dhahayaan horta wax walba raqiis ah waxaad ogaataa tayo ma lahan marka si loo fiiriyo haddii la laho raqiisa loo orda haddii lahana tayadii meesha kuma jirto laakiin gabdhaheen waxay ugu fiican yihiin waa gabdho macnaha isfahmaysiin oo wax badan markaa iska fahmi kartiin xagga hadday tahay dabeecadda dhaqanka diinta dhan waliba iska fahmaysiin inkastoo gabdhahaasna ayaguna ay diin leeyihiin oo islaam yihiin laakiinse isfahanku waa shay qaali ah labada qofood oo markaa oo mustaqbal ama iska rajaynayo waa inay isfahmi karaan horta qoftaas daa luuqadeeda baranaysa horta waqti kaa dhammaanayo oo waqtina kaa qaadanayo ana waxaa isleeyahay xaliimooyinka oo joogaan si walba ay ahaadaan wax lagu doorsada ma jiro xaliimooyinka intaa ku haystaan leeyahay haddii uu waqtiga kuu saamax ma laga yaabaa inaad ra'yigaaga badasho maya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal gabdhaha marookaanka iyo gabdhaha soomaalida sanadkan wiilashu waxay doorteen gabdhaha marookaanka adi ahaan sidee u aragtaa walaa baay aad iyo aad uga xumaa in marookaan la doorto ayagoo gabdho soomaaliya buuxaan ma fahamtay marka 90% waxaan leeyahay aad iyo aad uga xumahay gabdhahana soomaalida wax la siman kara ma jiraan Soomaaliya maxaa isleedahay ay ku doorteen maxay noogu duwan yihiin gabdhaha marookaanka wallaahi ma sheegi kara taas ma aqaan ayaga yaqaan wax ku doorteen adi wiil marookaan ma gursan lahayd maya aleha ka alaabayo maya ma gursadeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal sidee u aragtaa gabdhaha soomaalida iyo gabdhaha marookaanka waxa waa sanadkan waxay isku haystaan wiilasha dhan waxay naga aadeen marookaan adi ahaan sidee u aragtaa ana ahaan horta may buaha marooka ma aadalay Soomaali langana gorada may leeyahay qof adaga saasi oo qof adan gorada horta isku mid managada laakiin dhan Soomaaliya dhigay dhaanka iyo gorada ma Morocco-na wali jeeba horta bara bulshada ka dhigeen Morocco la sheego shaqul ma kulii mar ma laga yaabaa in ra'yigaaga isbedelo maya inay mar isbedel markuu yaab ku dhownaay aan aad iyo aad dadka Morocco aad anaga waxaan leenahay ka soo laabta gurihiina iyo caafidiin u soo laabta magaalada Muqdisho Morocco waxba ma idin tareeso soo dhawaada xamarkiina ku soo laabta naag laga weymay Soomaaliya laakiin naag kale wadanka shisheeye joogtay inay raadisaan adinka waxa la haysta waxna helaya jeebkiina oo samareen maana wadankiina oo soo laabta saas la yaaniya adi ahaan ra'yigaaga maxaa isleedahay ku doorteen wiilasha oo marookaanka ay u aadeen ra'yigaaga muxuu ku leeyahay wallahi ra'yi wuxuu leeyahay rag oo macnaa naagadanay waayay ama wax ku fala waayay xagga aadeen intii wax galkaayadna intii joogtaa aaminsanay laakiin intii wax garan weysay oo naagaha ay ku daadiyeen ama dooqood oo xumaaday xagga aadeen aaminsanay aniga laakiin taas iguma aysan dhicin lamaaniga istaa walaashay qaaliya Kawsar Indhoos ay joogto taas saa uga maarmay Marookana ayada iga fiican inay aado oo na kala u raadiyo macnaa saas ayaa leeyahay ana jalboodabe soo dhawo waxa waaye aad ugu faraxsanahay in lamaansan isku faanayaan isla xaaladda taagan Morocco ee tahay aad ugu faraxsanahay maxaa leedahay saygaaga aad iyo aad u maalcelinaya maadaama uu doortay Morocco ee doortay haddana ma sha Allah family qurux badan ilaa number ma santii aad ma santii xarwayna ku weydiina su'aal gabdhaha marookaanka iyo gabdhaha Soomaalida wiilashu waxay aad u yihiin Morocco adi maxaa safarka ugu baaqatay safarkee inta la aadaya Morocco war safarkii siyaad baraa anaga qaxina dagaalka carareen ba madaxna galma safar kala noo yimaado hadana walaalo Morocco la aaday ma la socod miyaa Morocco maxaa laga raadinaa bismillaahir rahmaanir rahiim gabdhaha laga raadinaa gabdhaha ku Soomaaliya joogay kuwa kale maxaa laga raadinaa maxay dheeriin gabdhaha Soomaalida ma saddex lug iyo wax bay dheeriin ma sheego lacagtooda raqiis ah kuwan Soomaalida waa raqiis waxa af aqaano oo kiri ku daadhi kara inta joogay walaalo si camal ah Morocco oo warkeeda aqaan xagga ku taal horta Morocco laftirkeeda ma Soomaaliya ba ka tirsantaa mise iga dabagay ma qaarad Soomaaliya ka guurtiba يا ولا ولا أنا قاعدة أدقتها كم خلني لكن مراكش قبلها جوجانا الله هذه أهان رأيك سيدو كلها مراكش إن لا هذا ما مد درس كي هذا سكر ساق قاعد يا تاس بقواست أنت سكول كي جامعة كأمانة مد مراكش يا كورونا يا مصعد بس عيب